shaqaynta 12 abriil gaar ahaan guutada koobaad guutada labaad iyo cutubyada danab waxaa maanta guul weyn aad u ah inay halgankii socday bisha iyo 12 casho ay natiijo la taaban karo oo ummadda Soomaaliyeed ku farxi karto ay ka gaareen taasoo ay ku xoreeyeen deegaan gaaraya ilaa iyo 100 kiiloomitir laga soo bilaabo inta ka shishaysa warciisa ilaa cadafool dheere ilaa iyo inta wabiga jiinkiisa dhulka maanta magaaladan aan joogno muuqaal ahaan waa magaalo yar waa tuulo laakiin waa magaalo istaraatiiji ah oo ka muhiimsan tuulooyinka degmooyinka xagga dhaqaalaha waxayna cadowga al-shabaab u lahayd istaraatiijiyad ballaaran oo xagga dhaqaalaha iyo xagga milatarigaba waxay isku xirtaa gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe magaalada madaxda gobolka Shabeellada Dhexe iyo xeebta gobolka Shabeellada Dhexe ee Cadale dhammaan intaas isku xirtaa waa central business waa gobolkii bartamihii ganacsiga ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan wey waa dhul caan ku ah xoolo dhaqashada iyo beeraha waa dhulkay ka heli jireen cadowga al-shabaab dhaqaalaha ugu badan oo ay ummadda Soomaaliyeed kula dagaalamaan qaranka Soomaaliyeed ku buriyaan hawlgalkaasaan soo galnay waxaa saldhig u abaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo go'aankii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo ahaa in caasimadda la nabadeeyo cadowgana laga xoreeyo gobollada Soomaaliya si mar labaad ummadda Soomaaliyeed lugaheeda isugu taagto looda soo celiyo qarannimadii sharaftii iyo cisigii ummadda Soomaaliyeed hawshaasna waxaa u xilsaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankaas xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya noocyada kale ee ciidamada qalabka sida iyo shacabka wadaniyiinta ah geesiyiinta ah ee ku nool gobolka Shabeellada Dhexe iyo guud ahaan gobollada Soomaaliya waxay ku gaareen guul aad u ballaaran oo guluf dheer socday waxaanan u ducaynaynaa ilaahay intii dhimatay inuu jannadii ka waraabiyo oo halgankan ku dhimatay oo aan aaminsanahay inay saalixiin yihiin ilaahayna jannadii geynayo la'annoo dadka khawaarijta ah oo diinta beenta ka sheega waa kuwii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii dilana janna yaa sal u ah waa ahlu janno kay dilaanna janna sal u shuhada muhiim ah yaa nooga dhimatay qaarna waa nooga dhaawacmeen allaha noo caafiyo kuwa kalena jannatul firdaws allaha geeyo dalka Soomaaliya maanta wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag marxaladaas adagna waa dadka la raba inay ka bixiyaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay hor ka ahayaan saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan mar labaad ku xirno dhammaan gobollada dalka ee Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeedna cisigii iyo haybadii ku lahaa qaaradda Afrika iyo geeska Afrika oo mustaqbalkeeda uga soo baxo abaabulkeennii iyo diyaargarowgeennii dagaalku oo soo bilowday muddadaas halganka dheer soo galay muddada dheer aan soo garaacaynay aan ku soo guulaysanay intii cadowga iyo ka natiijo keenintii xoraynta deegaanada muhiimka u ah ummadda Soomaaliyeed cadowgana dhabarjabka ku ah waxaa weeyaan waxay ka mid tahay guulaha xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay xusi doonaan mid dalka dibadda jira iyo midka gudaha joogaba ninka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ka tagaa cizi iyo sharaf ilmihiisana wuxuu ka tagaa cizi iyo sharaf magac wanaagsanna wuxuu kaga tagaa dalka qof walbaana ajashiisa maalintii dhammaad u dhimanayo intaan halgalkayga dagaalka ku soo jirnay muqdisho laga soo bilaabo ilaa darfaha gobollada Soomaaliya imise nin baa sariirahooda ku dhimaysay Ameerika iyo Yurub ku dhimanaysay waa caafimaad qabnaa waa nool maalinta taayadu timaadana waa dhimanaynaa annagoo calankayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga difaacayna dawladayada difaacayna shacabkayaga difaacayna xorriyaddii qarankayaga soo celinayna ummadayada xorriyaddeediina inaan ku dhimanno diyaar baanu saas maaha intaas saakayto aan halkaan isugu nimid hawlgalkii wejigiisa koowaad waa noo dhammaaday wejiga labaadna waa insha allahu tacaala waa la geli doonaa gobollada ka mid uu noqon doonaa ama Shabeellada Dhexe ha noqdo ama Shabeellada hoose ha noqdo ama Hiiraan ama Galgaduud ama gobol kasta ha noqdo marna halganka ma joojin doono
dagaalkana ma joojin doono ilaa al-shabaab aan ka xoreyno dhammaan mantiqada Soomaaliya sharaftii iyo cizigii xoogga dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed aan soo celin dadku markay halganka dabaqiga ku jiraan waxaa ka hor yimaada dhibaato badan oo xagga nolosha ah dhibaato badan oo xagga facility iyo logistikada ah laakiin wadaniyada iyada noo saamaxaysa inna wax uga rabno dalkayga inaan xoreyno qofna wax kaga raadin mayno dawladana waxaan leenahay taakuleedka logistikada waxa loo keena waa ku mahadsantiin shacabkayaga iyo xoolahayaga iyo dhulkayaga nagu filan asagaan cunaynaa asagaan ku noolaanaynaa annagoo qaawan baan difaacaynaa annagoo cagacad baan difaacaynaa annagoo dhar qabnaan difaacaynaa annagoo kala qabnaan difaacaynaa annagoo gaajaysan baan difaacaynaa annagoo dhabagsan baan difaacaynaa dalkayga meesha laga tagana waa barwaaqo si cizi iyo sharaf lahan shacabka Soomaaliyeed ee wadamada dibadda jooga ku nool dalkiinii cadow baa degay alqaacida iyo al-shabaab la yidhaahdo xoogga dalka Soomaaliyeedna boqolkiiba 80 waa ku guulaysteen inay xoreeyaan doorkiinii baa laydinka rabaa baan leeyahay waxaan rajaynayaa caawa in caalamka Soomaalida ku nool North America iyo Yurub iyo Australia iyo meel walba adduunka ka nool ay dhageysan doonaan dal gudihiisa ku jira xoogga dalka Soomaaliyeed hadduu waayo shacabkiisa oo wadaniyiina oo dawladda daaqil jooga guul ma gaari karo shay kuma jiro waa inay taageeradooda codka helaan waa inay taageeradooda dhaqaale helaan waa inay guwaabintooda helaan waa inay banaanbaxyada lagu taageerayo gobollada degmooyinka ay ka dhacaan xoogga dalka guulihiisa lagu taageerayo waa inay dhacaan xoogga dalku kaas socon karaa taageero dhaqaale looga baahan yahay taageero shucuur iyo wadaninimo looga baahan yahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed taas looga baahan yahay xoogga dalka Soomaaliyeed maskaxdiisa iyo xooggiisu waa shacabka Soomaaliyeed dawladdeedu waa dadaalaysaa runtii waa dadaalaysaa ولينا دلك الوجه اسكما تاجن أو دقالة ما يصير بسوق قلين لكن ساعات كست مدحوينها يا رئيس الوزراء يا حكومته كما بحان إيش أنا تلفوننا كما بحان حالة إننا من 6 ساعة ونص وحين يرادنا واسود جينا وحين على بور مله على فول ديره على فول ديره أنا على فول ديره ما يعطوك واحد مدحوا ملايين ما قالوا وينه على بور وين له على بور مله أنا لي اسكت شوقة أنا يعني مثله xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ogyihiin dalka aad u haysaan madaxda qarankuna saasay waxay la fadhiyaan ducadan waa la fadhiyaan taakuleentana waa la fadhiyaan taakuleentana intay tahay baan ku dagaalgalaynaa gabadhana way siyaadaysaa guul maalintaad gaartaba barwaaqada oo siyaadaysa guul maalintaad gaartaba cizigaa siyaadaya guul darra maalinta kugu dhacdana adaa waad jabaysaa waxaa nala jooga guddoomiyihii degmada Mahadaay oo mantiqadan hadda aan ka dagaalamaynay inteeda badan asaga ay hoos imaanaysay waxaan waasna u jecel yahay inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyo u soo jeediyo asagoo magaca shacabka ku hadlahaya deegaanada laga xoreeyay cadawga gaar ahaan Cali Fool Dheere Qurac Madoobe Warciise Aqabduco iyo inta la halmaasho oo kale asagoo magaca shacabka ku hadlaya inuu xoogga dalka Soomaaliyeed u soo jeediyo mahadnaq uu doonaya